bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan falanqeyn toos ah oo aynu ku falanqeynayno xiisada Iiraan iyo Mareykan oo cirka isku sii shareertay. dowladda Iiraan ayaa xalay waxa ay 10 gantaal ku riday laba goobood oo Mareykanku ku leeyahay wadankaasi Ciraaq. aroornimadii hore ee saakay ayuu soo dhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump qoraal gaaban oo bartiisa Twitter soo dhigay oo uu ku leeyahay wax walba waa ay dhanyihiin. laga soo tuuray Iiraan ayaa lagu weeraray laba saldhig oo aan ku leenahay Ciraaq. qiimeynta khasaaraha ka dhashay ayaan wadnaa wax walbana waa hagaag. waxaana leenahay ciidanka ugu awooda badan caalamka ee haysta hub casri ah. dibna ayaan ka soo sheegi doonaa sida ay wax u dhaceen ayuu qoraal gaaban oo bartiisa Twitter soo dhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku sheegay. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in laba saldhig oo ay ku leeyihiin ciidamada Mareykanka kuna yaala gudaha dalka lagu weeraray. xukuumadda Washington ayaa waxa intaasi sii raacisay in saldhigyada la beertilmaameedsaday ay yihiin Erbil iyo Al-Asad. ilaa haddana ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo inta uu leeg yahay. geesta kale baynta Iiraan ayaa laga sheegay inay aarsatay oo ay dishay 80 ka mid ah ciidamada Mareykanka ee magaalada Baghdad ee dalkaasi Ciraaq. geesta kale militariga wadanka Iiraan ayaa ku hanjabay inay duqeyn doonaan saldhigyo ciidan militari ee Mareykanku ku leeyahay wadanka Imaaraatisa. waxaana saaka kulan degdeg ah yeeshay wasiirada gaashaandhigga ee Sacuudiga iyo Imaaraadka iyagoo codsi u gudbiyay wadamada Faransiiska, Jarmalka, Ingiriiska oo ay kaga dalbanayaan in loo soo gurmado haddii wadanka Iiraan ku dhaqaaqo duqeymo uu ka fuliyo wadamadan. si kastaba ha ahaatee xiisada Iiraan iyo Mareykanka ayaa aad looga qeylinaya wadamo badan oo caalamka ayaa gacanta taagaya xiisada hadda ka aloosan Mareykanka iyo Iiraan lagu dhameeyo wadamada Ruushka, Shiinaha iyo Japan iyo waliba wadamo kale oo badan ayaa ka qeylinaya xaaladda labada wadan ka dhex aloosan. hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay maanta mar uu khudbad u jeedinayay malaayiin shacab haddii ay Washington isku daydo inay ka jawaabto jawaabtii aan bixinay xalay ee argudashada ahayd waxa haynaa ugu yaraan 100 meelood oo kale waan ka sameyn karno duqeymo kale. hogaamiyaha ruuxiga ee dalka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei yiri Iiraan gardarro uma dul qaadanayso waana ka falcelinaysa. mar uu ka hadlayay munaasabada ayaa waxa uu hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatollah Ali Khamenei yiri dalka waxa uu diyaar u yahay inuu jawaab ka bixiyo gardarooyinka caalamiga. wuxuu sidoo kale sheegay in generaalkii la dilay Qaasim Suleymani uu ahaa isbedel doon dhanka caalamka. hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay xalay wajiga ayaan ka dharbaxnay ayuu yiri Ayatollah Ali Khamenei mar uu ka hadlayay weeraradii xalay lagu qaaday saldhigyo ay Mareykanka ku leeyihiin wadankaasi Ciraaq. dadkii halkaasi iskugu soo baxay ayaa ku dhawaaqayay Mareykanku ha dhinto. waxa uu hadalkiisa ku sii daray marka ay xaaladan oo kale ay timaado tilaabo militari oo kaliya xal ma ahan. geesta kale warar hordhac ayaa sheegaya in shirkadda Twitter ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ay xidhay bogdii uu ku lahaa hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatollah Ali Khamenei kadib weerarkii Iiraan ay xalay ku qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanku ku leeyihiin dalka Ciraaq. wariye ku sugan wadankaasi Ciraaq ayaa sheegay magaciisa loogu magacaabo Haydar Hamsos oo ka tirsan shabakada warbaahinta bulshada Ciraaq ayaa bartiisa Twitter soo dhigay sawiro uu ku sheegay inay tusayaan mid ka mid ah gantaalada aan qarxin ee Iiraan ay xalay ku riday saldhigyada uu Mareykanku ku leeyahay Ciraaq. gantaalkan ayaa la sheegay inuu ku dhacay hitan oo dhinaca koonfureed ka xiga saldhigga Mareykanka ee Al-Asad. warbixinada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah dowladda Australia ayaa maanta bilowday olole ay ku dilayso kumanaan geel ah si ay uga hortagto biyaha badan ee laga cabsi qabo inay cabaan. dowladda Australia ayaa sheegtay inay 100 helicopter ay ku dili doonto in ka badan 10,000 oo geel shanta maalin oo soo socota. geela Australia ayaa meel walba ka raadinaya biyo uu cabo iyadoo cimilada dalkaasi ay si kululaanayaan. sidoo kale ay gubteen kaymaha Australia oo malaayiin xayawaan ay ku dhinteen.